أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد waxaan jeclay maanta inaan ila qaybsado bulshada Soomaaliyeed fariintan kooban. waxaan jeclay inaan waliba fariintan la sii wadaago gabdhaha Soomaaliyeed. waxa badan aan arkaa oo social media badan wada ogsoonay nagu soo noqnoqda waliba khaasatan aalada TikTok gabdho badan oo ka dhex ooya dhibaatooyin loo geystay awgeed ka cabanaya ama xagga bulshada xagga sayga ama xagga ehelka meeluna kaga timaado laakiin gabdho badan oo runtii aad u murugaysan oo intaa cabanaya oo intaa ooyay aan ku aragnaa runtii imageka picturekaasi aad ayuu noo damqaa aniga ahaan aad baan runtii uga naxaa. waxaan fariintan farayaa waxa weeye gabdhahaas noloshu waa test waxa lagu keenay imtixaan walba ood marayso dad adigu maraysa kama dhigna yani inaad tahay qofkii ugu horeeya maraya ama qofkii ugu dambeeyay horena waa loo maray adiga hortaa gadaashaadana dad badan baa mari doona noloshaana sidaa u samaysan adduunyada imtixaan baa lanoo keenay imtixaankaad maraysa nolosha waxyaabaha ku wajahan xagga nolosha imtixaanada aad marayso waa qayb ka mid ah cibaadada ilaahay adduunka noo keenay waxaa la eegayaa sabirkaaga iyo sida uga falceliso iimaan ma leedahay oo qadarka ilaahay ma aaminsantahay baa lagu eegayaa islaamnimadaad sheeganaysa makaadha baabaa lagu eegay because islaam iyo dad muslima markaan nahay ilaahay wuxuu yidhi inaga ayaa ugu sarreeya wa antum alacluun يعني إنك أي أوجس الرأي تذكر وايو solution كيدا نا إيه نوشي دنايد بقعمه إنه إلهي كسوري ده كتاب القرآن كي السنة النبي عليه الصلاة والسلام واحد كهلسا حلو البعض وبهنتين علشا ما ها يعني عبادة إن يعني صلاة تقصون عبادوين كإلهي نفرقين هتسميسو لكن دين الإسلام هو معاملات ودستور دن constitution دن وإلهي نوسو دجي سي أنا ودقنو وقول وعمل soomaalida laakiin dadkeena inta ugu badan waxaad moodaa inay afkuun ay ka tahay ayna ku dhaqmin kumana dhaqano because haddii aan ku dhaqmayno dowlado badan oo muslimka kamid ah kuma dhaqmaan haddii lagu dhaqmay xaalka muslimku sidan maba ahaadeen waxaan ku jirnaa al-cusuur al-muzdahira cusuurtii wanaagsanayd ee muslimku markuu xooga lahaa oo quwadda lahaa oo powerka lahaa ee xataa qof miskiina oo ooya oo gaajooni aan la helin dadkii umaradii soo maray ugu wanaagsanaa muslimiinta ay habeenka saa u muraaqabeyn jireen dadka dhex mari jireen qof maalin murugaysan hadday arkaan ay habeenkaa ooyi jireen inay seexan jirin ay odhan jireen anoo xakumaya maanta oo xaakimka ama wadankan ama magaaladan sideen u arkaa qof cabanayo murugoonaya siduu qof igu dhex murugoodaa maantana waxaad weydiisan inta dad ee masaakiina ee gaajo u dhimanaysa inta hoog iyo balanbal iyo rafaad u dhamaaday cid war haysa male social media intan imanaysa inta kale aanan imanayn baa kulli ka badan laakiin aan waxa la imka aad bay nagu badatay in nolosha social media la keena Soomaaliya hablow ka digtoonaada dad bay naga faa'iideysta dad baa maanta dhan si qaldan ugu falceliya dad baa views nagu raadsanaya dad baa maxkamada isku magacaabay waxyaabeen ku qoslo oo dadka intaas wadadii ay daawanayaan oo siyaabo qaldan siyaabo qofka soo doon uga falcelinaya dadka dad badan dhaawac baa loogu sii geystaa xal ma aha adkaysiyaasha haddaad u baahantiin dad badan oo caawin karaa jira waxa jira counselors haddii aad dibadda joogto haddaad afgaranayn xataa kuu qabanaya turjubaan oo xal kuula raadinaya nolosha laakiin xalka ugu horeeya waxa weyn inaad horta number 1 ilaahay ku xidhnaatid ilaahay inaad u oodid sujuuda ku oodid salaadaada on time tukatid tasbiix badan samaysid sadaqad badan la baxdid naftaadana aad ka bixisid environmentigan oohinta iyo murugada sometimes isku day inaad environment yar wanaagsan aad samaysato oo create garaysato oo kaga bixi karto waxaad ku dhex jirtay muurkaaga ha ku soo celin maskaxdaada wixii kugu dhacay sidoo igu dhacay laakiin sidoo waa bixi kartaa ka fikir move on wax la yiraahdo baro oo samee laakiin inaan mar walba gabar Soomaaliyeed oo aysan aragno maxay naga qaldan dumarka Soomaalidu waa dumarka adduunka ugu adag inay aaminsan xadaarooyin badan baan soo dhax galay wallahi waxaan aaminsan waa dumarka adduunka ugu adag sababtoo ah adkaysiga leeyihiin iyo sida ay xaalado badan uga soo gudbeen iyo sida laf dhabarka ugu yihiin bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadba waa amazing marka hablaha soo galay social media wali waxa u badan hablaha dibadda jooga inagii baaba haysta caawimaad ugu badan kuwii dalkii joogay iska bada inagii baaba haysta caawimaad ugu badan ee qofku markay dhibaato ku dhacdo oo meelo badan caawimaad ka heli karo imaamka miskiidkaaga u tagi kartaa xataa oo la wadaagi kartaa qofku kugu dhaw diin iyo akhlaaq ee aad muxuu haay ku tuhmaysan la wadaagi kartaa way noloshiina u keenaysa social media way caruurta hadhow toole caruurtiina inay daawanaysa aad cuqdad iyo xanuun ugu ridaysid caruurta haddii maanta yariin bari way weynaanayaan wax badan inaad ka fikirtiin baa fiican aqliga saliimkii ha shaqeeyo gabdho oohintan iyo calaacalkan indha xumadan social media la joogtiin habeen iyo dhalaa 9 gaba please naga daaya we sick and tired of it aad ban wallahi ay noo dabaqdaa haddii aan haweenka Soomaaliyeed
qofka bini aadankii adduunka imtixaan baa loo keenay, imtixaanka lagu keenay you have to fulfill it. ama kii ku guuleysta ayaad noqonaysaa ama kii ku fail garooba. ilaahay naga midhig ku fail garooba. dhibaatada kugu dhacaysa waa part of cibaadadaada, sabirkaagu ilaahay ku eegay. raggana waxaa leeyahay dumarka mas-uuliyad waxaa looga dhigay ragga. gabdhaha soo fadhiisanaya aadka u dhibaataysan social media laga warhayo, walaal haddii aad tahay, zooj haddaad tahay, ehel haddaad tahay, aabba haddaad tahay, wiil haddaad tahay, ka warhay, because mas-uuliyad baa kaa saaran. mas-uuliyadda haween adduunka loo dhibo waa rag, mas-uuliyadda haweenka cid ka mas-uulkina waa rag. please dhaawac iyo dhibaatada loo geysanaya laga daayo, kusbari waa la iska xisaabinaya. waxa waa mas-uuliyad wey. ilaahay nabiga alayhi salaam kullukum raacin wa kullukum mas'uul can raciyatihi. qof kasta wixii loo dhibo mas-uulka yahay. marka mas-uuliyadana dhammaantiin kasoo wada baxno. gabdho noloshu way adag tahay, dumarkuna wax badan ma qaadi karaan oo iska samayskooga ayaa saa u samaysan. waxaan odhan lahaa situationada dhibaatada ay keenayaan bilowga kasii taxadira, halaga taxadiro. waxa weeyaan situationka kugu soo noqon hala isku dayo mar walba, laakiin caawimaad meelo badan ka raadsada, social media ka dhex raadsaninayaan unin oolan lahaa. ilaahay dhanay abuuray baa dumarka u diiday inay walwalaan. meelo badan isagoo la hadlaya dumaradii hore, ilaahay wuxuu ilaha awalwelin, ha fikirin, waxyaabo badan ayuu ilaahay muxuu haaye mawaadiic badan buu ilaahay kaga hadlay, suurado badan buu ilaahay kaga hadlay. tusaale ahaan nabi muuse hooyadii markii ay biyaha raacinayso fircoon dilay wixii rag dhasho oo dhan, watii laga yiri waa ku soo celinaa hawalwelin. markii ay iyadu ay noqoto qofkii naaska siinay loo celiyayna watii ay yiri waxaan ugu celinay ilaahay yiri isayna u walwelin. nabi ciise hooyadii markii ay foosho qabatay xanuunka aad u walwalsaneed meel cidla ah, markii nabi ciise dhashay wakii ka hoos hadlay ee yiri hawalwelin hooyo hawalwelin, waxaad geedka aad hoos fadhida gilgil timirtaa cun kaaga soo daadanaysa, meeshaad ku fadhidana lugta ku cadaadi biyaha kasoo baxayana caad. xataa haween isagoo si caama ula hadlaya dumarka, ilaahay wuxuu yidhi hawalwelina, hana walwelina, yani hawalwelina likay laa yaxzan. mawaadiic badan ilaahay muxuu haayay waa kaga hadlay. marka ilaahay dhanaaba dumarka mashaacibtooda ilaaliya, isaga og sida loo ilaaliyay. adigoo basharana waxaa lagaa rabaa inaad halkaa kasii ambaqaado oo dumarka mashaacibtooda dhowrtiin ood ilaalisiin. dumarow inaguna cid inaga iskaga kiirooni ma jirto, qof walba isaga ayaa is caawin kara. haddii aad is caawin weyda cidda ku caawin mayso. naftiina u tura, naftiina ilaaliya, maskaxdiina ilaaliya, especially haddii aad hooyo tahay, maskaxdaada iyo caafimaadka maskaxdaada ilaali. waxyaaba badan waa ka gudbi kartaa, noloshu way ballaaran tahay. haray u soco oo haray eeg, dib ha eegin, gadaal ha eegin. dhibtan maanta ku jirsan uga bixi karaa, xalkeeda raadi, move on samee mar walba. intaasaan kusoo gabagabeynaya. waana salaamay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.